B Sara C Hafsa D Hajra سؤال صدحات عاصمة ودن كبيرو عاصمة ودن كبيرو A Monrovia B Lima C Brazzaville D Minna عاصمة ودن كبيرو A Monrovia B Lima C Brazzaville D Minna سؤال شافرات فرس كلب وحليرا فرس كلب وحليرا A سنجي B ميدل C قاچه D منا فرس كلب وحليرا فرس كلب وحليرا A سنجي B ميدل C قاچه D منا سؤال شناد waxay leedahay ereyga tahriib asalkiisu waa af carabi markuu af Soomaali yahayna waa ereyga tahriib asalkiisu waa af carabi markuu af Soomaali yahayna waa A suudal B surmi C socoto D sibir dhaqaaq ereyga tahriib asalkiisu waa af carabi markuu af Soomaali yahayna waa A suudal B surmi C socoto D sibir dhaqaaq سؤال لحاد قرية اللب وحلا يدا قرية اللب وحلا يدا A عول B حلق C هلدا D قرية قرية اللب وحلا يدا قرية اللب وحلا يدا A عول B حلق C هلدا D قرية su-aasha toddobaad tuulada guumays waxay ku taalaa gobolka tuulada guumays waxay ku taalaa gobolka A Saraar B Sanaag C Buuhoodle
D sool tuulada guumays waxay ku taallaa gobolka A Saraar B Sanaag C Buuhoodle D sool su-aasha sideedaad waxay leedahay khadiija bintu khuwaylad ilaahay raallaha ka ahaadee waxay geeriyootay khadiija bintu khuwaylad ilaahay raallaha ka ahaadee waxay geeriyootay e 623 miilaadiga b 620 miilaadiga c 619 miilaadiga d midna khadiija bintu khuwaylad ilaahay raallaha ka ahaadee waxay geeriyootay e 623 miilaadiga b 620 miilaadiga c 619 miilaadiga d midna su-aasha sagaalaad waxay leedahay dhikilku waxa uu ka baxaa geedka loo yaqaano dhikilku waxa uu ka baxaa e dooxooyinka b fuuqyada dushooda c derbiyada d dawyada dhikilku waxa uu ka baxaa e dooxooyinka b fuuqyada dushooda c derbiyada d dawyada su-aasha tobnaad inanku marka uu guursado xoolaha uu tolkii soo siiyo waxaa la yidhaa inanku marka uu guursado xoolaha uu tolkii soo siiyo waxaa la yidhaa e kaalo b maal c deeq d caawimo inanku marka uu guursado xoolaha uu tolkii soo siiyo waxaa la yidhaa e kaalo b maal c deeq d caawimo su-aasha 11 cumar bin cabdilcasiis waxa uu ka tirsanaa dowladdii cumar bin cabdilcasiis waxa uu ka tirsanaa dowladdii e cabaasiyiinta b umaawiyiinta c cusmaaniyiinta d midna cumar bin cabdilcasiis waxa uu ka tirsanaa dowladdii e cabaasiyiinta b umaawiyiinta c cusmaaniyiinta d midna su-aasha 12 labadii nebi ee isdhalay waa
labadii nebi ee isdhalay waa haaruun iyo muuse calayhi salaam, saleebaan iyo sakariye calayhi salaam, ibraahim iyo ismaaciil calayhi salaam. d mina labadii nebi ee isdhalay waa e haaruun iyo muuse calayhi salaam, saleebaan iyo sakariye calayhi salaam, ibraahim iyo ismaaciil calayhi salaam. d midna su-aasha 13aad koobkii kubadda cagta adduunka waxaa ku guuleystay sanadkii 1998kii. koobkii kubadda cagta adduunka waxaa ku guuleystay sanadkii 1998kii e Brazil, b Talyaani, c Faransiis, d midna. koobkii kubadda cagta adduunka waxaa ku guuleystay sanadkii 1998kii e Brazil, b Talyaani, c Faransiis, d midna. su-aasha 14aad biyadiid kow bishii bilataba bilawaafliyo bir laguu raadi waxaa loogu heesaa. biyadiid kow bishii bilataba bilawaafliyo bir laguu raadi waxaa loogu heesaa. e looda, b geela, c adhiga, d dhammaan. biyadiid kow bishii bilataba bilawaafliyo bir laguu raadi waxaa loogu heesaa looda, geela, adhiga, dhammaan. su-aasha 15aad waxay leedahay labada halaad ee ay nidhi keliya wada jaqdo waxaa la yidhaa. labada halaad ee ay nidhi keliya wada jaqdo waxaa la yidhaa. e sidig, b lamaane, c labalis, d magow. labada halaad ee ay nidhi keliya wada jaqdo waxaa la yidhaa. e sidig, b lamaane, c labalis, d magow. su-aasha 16aad waxay leedahay waddanka Maldives waxa uu ku yaalaa qaaradda. waddanka Maldives waxa uu ku yaalaa qaaradda. e Yurub, b Africa, c Amerikada Koonfureed, d midna. waddanka Maldives waxa uu ku yaalaa qaaradda. e Yurub, b Africa, c Amerikada Koonfureed, d midna.
su-aasha 17aad caasimadda Botswana waa caasimadda Botswana waa Inchimene oo ah B Monrovia C Bamako D Gaborone su-aasha 18aad cali binu abi daalib radiallahu canhu waxa uu khaliifkii muslimiinta ahaa muddo dhan cali binu abi daalib waxa uu khaliifkii muslimiinta ahaa muddo dhan a 7 sano b 5 sano c 6 sano d midna cali binu abi daalib waxa uu khaliifkii muslimiinta ahaa muddo dhan a 7 sano b 5 sano c 6 sano d midna su-aasha 19aad ereyga casho asalkiisu waa af carabi marka uu af soomaali yahayna waa ereyga casho asalkiisu waa af carabi marka uu af soomaali yahayna waa a habeenka hadh b cuwaaf c habeen cun d xeraad ereyga casho asalkiisu waa af carabi marka uu af soomaali yahayna waa a habeenka hadh b cuwaaf c habeen cun d xeraad su-aasha 20aad waxay leedahay geesiga madow uma ogola guusha reer yurube geesiga madow uma ogola guusha reer yurube waxaa tiriyey gabaygan geesiga madow uma ogola guusha reer yurub waxaa tiriyey gabaygan a abwaan dhoodaan b abwaan hadraawi c abwaan tima cadde d midna geesiga madow uma ogola guusha reer yurube waxaa tiriyey a abwaan dhoodaan b abwaan hadraawi c abwaan tima cadde d midna su-aasha 21aad dagaalkii tabuuk waxa uu dhacay sanadkii a 6aad ee hijriyada b 7aad ee hijriyada c 8aad ee hijriyada d midna dagaalkii tabuuk waxa uu dhacay sanadkii a 6aad ee hijriyada b 7aad ee hijriyada c 8aad ee hijriyada
D midna. su-aasha 22aad su-aasha 22aad waxay leedahay kaale marwoy madaxa u yareey mamas baa ku dhalay heestan waxaa la tiriyaa e marka geela carrada la siinayo, b marka geela la waraabinayo, c marka geelu geediga yahay, d marka riyaha la waraabinayo. su-aasha 23aad bisha labaad ee dayrta magaceedu waa, bisha labaad ee dayrta magaceedu waa a dayrhabis, b dardhiga, c dambarsame, d wijiine. bisha labaad ee dayrta magaceedu waa a dayrhabis, b dardhiga, c dambarsame, d wijiine. su-aasha 24aad bisha saddexaad ee sanadka islaamku waa, bisha saddexaad ee sanadka islaamku waa a muxaram, b ramadaan, c shacbaan, d midna. bisha saddexaad ee sanadka islaamku waa a muxaram, b ramadaan, c shacbaan, d midna. su-aasha 25aad waxay leedahay su-aasha 25aad murtidan tiriyaa miyiga u baxdo maqashay ku ceshaan magaratadu waxa tiriyey, murtidan tiriyaa miyiga u baxdo maqashay ku ceshaan magaratadu waxa tiriyey a cali banfas, b ismaaciil cagaf, c cabdiqays, d barkad cas. su-aasha 26aad marti nin ka yar iyo marti nin ka yar iyo magan nin ka yar midna lama arag waa e muddo maalin ka yar midna lama arag, c maalin habeen ka yar midna lama arag, d
intaba marti nin ka yar iyo dash magan nin ka yar midna lama arag muddo maalin ka yar midna lama arag maalin habeen ka yar midna lama arag d intaba su-aasha 7 ururka khaliijka carabta waxaa la aasaasay ururka khaliijka carabta waxaa la aasaasay a 1982 b 1983 c 1981 d midna ururka khaliijka carabta waxaa la aasaasay a 1982 b 1983 c 1981 d midna su-aasha 8 dagaalkii muta waxa uu dhacay sanadkii dagaalkii muta waxa uu dhacay sanadkii a 8aad ee hijriyada b 7aad ee hijriyada c 6aad ee hijriyada d midna dagaalkii muta waxa uu dhacay sanadkii a 8aad ee hijriyada b 7aad ee hijriyada c 6aad ee hijriyada d midna maqorku waa a waa qaydar laga cabo b waa gelgelinta c jiri daloosho oo biyuhu galaan d midnaba maqorku waa a waa qaydar laga cabo b waa gelgelinta c jiri daloosha oo biyuhu galaan d midna su-aasha ugu dambeysay barnaamijku waa su-aasha 7aad boqor najaashi waxa uu dhintay boqor najaashi waxa uu dhintay a sanadkii 9aad ee hijriyada b sanadkii 7aad ee hijriyada c sanadkii 6aad ee hijriyada d midna boqor najaashi waxa uu dhintay a sanadkii 9aad ee hijriyada b sanadkii 7aad ee hijriyada c sanadkii 6aad ee hijriyada d midna waa su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijkeena waxaa inoo hadhay oo keliya inaynu imika ku dhawaaqno guuleystayaashii tartanka waxaana qadar xaysiisa kadib aynu ku dhawaaqaynaa 13 qof ee caawana ku guuleystay tartanka barnaamijka kadis qadar xaysiisa kadib waxaad daawan doontaan 13 qof amaan idin yeedhin doonaa 13 lambar ee kaalmaha hore caawa ka galay barnaamijkeena kadis barnaamijka kadis ee shirkadda Telesom ururka qaramada midoobay waxa la aasaasay taariikhdu markay ahayd 1945
muxuu ahaa barnaamijkan telesom soo bandhigtay ee TV ka daawanaysa waa barnaamijka kadis oo ah barnaamij cajiiba isla markaana lagu helayo abaalmarino anigu saaxiib waxaan kaga jiraa abka telesom taariikhdu markay ahayd ee 1945 b 1945 waaryaadhe barnaamijkii kadis ee telesom ayaa soo galay aan ka faa'iidaysanay aamusa saaxiib dhalinyaro badan ayaa sanadkii hore ku guuleystay abaalmarino qaali ah marka aniga saaxiib sanadka xabad ay dhaaf mayso waayo waxaan soo akhristay cilmi badan anigu waxaan sitaa mobile tooshlaa ee ma ka qayb qaadan karaa barnaamijka kadis ay bixiso shirkadda telesom haa saaxiib qof kastoo isticmaala simikaarka telesom moobilku doonaha haystee wuxuu si fudud uga qayb qaadan karaa barnaamijka kadis waxaa ka xigta adeega mobile education intuu iska diiwaangelinayo ururka qaramada midoobay waxa la aasaasay taariikhdu markay ahayd ee 1945 b 1965 c 1946 d si aad isaga diiwaan geliso barnaamijka kadis ee shirkadda telesom garaac xidig 404 gees kadibna dooro mobile education waxaad barnaamijka kadis si toosa uga qayb qaadan kartaa habeen walba adigoo adeegsanaya 3 hab hadba kii daawadayaal way gabagabeyna barnaamijkeeni waxaan hadda ku dhawaaqaynaa 13 qof ee ku guuleystay barnaamijkeena caawa kaalinta koowaad waxa galay 4 eber 7 6 3 hal 6 kaalinta labaad 4 eber 4 2 5 4 5 kaalinta saddexaad eber 6 3 3 8 8 eber 9 4 eber kaalinta afraad 4 eber 7 9 4 7 2 kaalinta shanaad 4 2 9 eber 8 eber 8 kaalinta lixaad 4 eber 3 2 9 7 3 kaalinta toddobaad 4 8 6 hal eber 6 4 kaalinta sideedaad 4 2 2 3 eber 3 7 kaalinta sagaalaad 4 7 5 8 4 hal 4 kaalinta tobnaad 4 hal 2 4 7 8 3 kaalinta koob iyo tobnaad 6 6 hal hal 9 2 7 kaalinta laba iyo tobnaad 4 2 6 5 8 eber 7 kaalinta saddex iyo tobnaad 4 4 7 9 4 4 4 daawadayaal waxaan soo gabagabaynay barnaamijkeena kadis habeenkan caawa waxaan rajeynayaa intii caawa ay u suurtageli weyd inay kaalmaha hore galaan inay habeen dambe hadda ay u diyaar garoobi karaan inay iyaguna ku guuleystaan oo kaalmahaasi balmarun ay imaadaan isla markaasina ay qaataan nadiida qaali oo shirkadda telesom ugu talagashay bisha barakaysan ee rabadaan ay kaga qayb qaadato maaweelada bishaasi barakaysan aniga asxaabta kale ee gala qayb qaadatay barnaamijkeena kadis dhammaantiin inta barnaamijka ku xiga habeen dambe ku kulmi doono waxaad iga tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wuxuu si fudud uga qayb qaadan karaa barnaamijka kadis waxaa ka xigta adeega mobile education intuu iska diiwaangelinayo ururka qaramada midoobay waxa la aasaasay taariikhdu markay ahayd ee 1900